بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قصة رب إسرائيل ينقصر حسرني هي آيات كي الله سبحانه وتعالى ونهو الشيء مع الجنة ذولا هي مدحضي قولا سيبا مركل السيولا ولغا السيو الرمية ربي سبحانه وتعالى واذكر واحد حسطاء النبي إذ وقت قلنا آنري ربني إسرائيل مركان كنري ادخلوا قلا هذه مدن القرية مقالة دقمدا قلا وفكلوا عنا منها قرية حقيدة حيث مال على ماشي شئتم أضنتان رغدا أكلا عنتان رغدا أو واسع وادخلوا قلا الباب إردنا قلا سجدا إذنكو سجود سن وقولوا وحا نطهد على المركز قليسان حطة مسألتنا عكسك النبو حطة ودمدار ريد ويدمدي وانا لقرده هذا سايشان نقدر وانو ضاف لكم إذن كوحا ندين ضافينا خطاياكم قففيالكين وسنزيد وانو سيادين دونا المحسنين كوا هجاجية الصوافلك لي مادنا أجركي السماحة سيادين نوي وحي عيد دقمدي إذا عيد سورة المائدة نوغو من دونتا اللي يري انتاز كشان كقفصدا نوانكي دقنايا عمالي قضاها وكوي ديري كدبنا قلال ضمن مقالدي وي فرتين مقالدي مركي اي فرتين باشكري يمهد علين الهي مقالدة قلالي مركز مقالدة قشان مقالدة ومقالة برواقع رزقها مقالدة يالا si waasaca oo aan ciriiri ahayn u cuna cunitaan waasaca cuna magaaladaasi marka waa baytulmaqdis weeye sida loo badan yahay waxaa la yidhi markaad gelaysaan magaalada sujuud ku gala wadkhulu lbaaba sujadan albaabka gala idinkoo sujuudsan sujuudda hore waxaan usoo sheegnay qur'aanka iyo sunnadu markay isticmaalayaan wajiga dhulka la dhigaan loo yaqaana istilaaxa shariica laakiin halka waxay leeyihiin yani siyaaqa diidayo gala ruuxu markuu galayo oo socod uu ku gali isagoo wajiga dhulka ku haya ma gali karo magaalo sidaas daraadeed sujudanta idinka oo rukuucsan oo foorara oo ilaahay isu duleynaya magaalada gala si ay u suurowdo macnaha gelitaankii iyo yani waxa weeye sujuudiba u suurowdo waana loo isticmaalaa waxaadna tidhaahdaan baa layidhi markaad sidaas samaysaan waxaad tidhaahdaan xitatun dhah xidadu waxa weeye waa in dembiga nalaga hoobiyo oo dunuubta nalaga rido saasaanu codsanaynaa oon doonaynaa ilaahu wixii dembigaan galnay noo dhaaf yani waxa weeye rukuucdaana ku gala saa haddaad yeeshaan gafafyaalkiinni iyo khaladyadiinni waanu dhaafaynaa kuwiina samaha la yimaadee wanaagga la yimaadana muxsiniintaana waan u kordhinaynaa bu rabbi subxana watacala wadkur cusnabiyow id waqti qulnaa aan nidhi udkhuluu gala reer bani israa'iilow haadihi lqaryata degmadan gala waa baytulmaqdis weeye oo fakuluu cuna minhaa xaggeeda ka cuna xaysu meel alla meeshii shi'tum aad doontaan meeshaad rabtaan ka cuna raqadan aklan cunitaan raqadan oo waasica aan ciriiri ahayn waa barwaaqo wey magaaladu markaa wadkhuluu gala baa layidhi albaaba iridda gala sujadan idinkoo rukuucsanoo foorara idinkoo ilaahay isu dulaynayo oo baahidiina muujinaya ilaahay aad u baahan tihiin magaalada saa ku gala iriddeeda waa shukri wey magaalada allihii u furay bay u mahad celinayaan oo cibaadadan la farayaayo waa mahad celin waquuluu waxaad tidhaahdaan xitatun mas'alatuna codsiga nagiyo waxaan weydiisanayno waa xitatun waa ridid dembigana laga rido dembigoona loo dhaafaanu rabnaa
naqfir waanu dhaafi lakum idinkaanu idin dhaafay haddaad saa yeeshaan khataayaakum gafafyaalkiinaanu idin dhaafayna wasanaziidu waanu siyaadin doonaa yani khayrka iyo thawaabka iyo abaalgudkaan u siyaadin doonaa almuxsiniina kuwa samaha fala muxsinka waa darajo iimaanka ka sarraysa ixsaanka la yidhaahdaayo yani waxa way an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa kii xadiiska nebiga sal lay slm ilaahay ood u caabudo sidii adigoo arkayoo kale darajadaasaa waxaa la yidhaahdaa yani darajat lixsaan marka kuwaas waan u kordhin doonaa rabbilahi subxana waan u siyaadin doonaa sidaasaa lagu yidhi ayib maxay sameeyeen marka awaamirtaa markii la siiyey fabadala way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey qawlan hadal bay bedeleen hadalkaasoo yani fabadala way bedeleen de aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey hadalkii lagu yidhi bay bedeleen qawlan hadal bay ku bedeleen qawlkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lagu yidhi lahum yaga hadalkii lagu yidhi hadal aan ahayn bay ku bedeleen kii lagu yidhi faanzalnaa waan soo dejinnay cala aladiina kuwii dushooda waxaan ku soo dejinnay dalamuu dulmiga sameeyey oo khaladkaa ku kacay rijzan cadaab baan ku soo dejinnay min asamaa'i xagga saraan kaga soo dejinnay bimaa kaanuu ahaanshahooda sababkii ay ahaayeen yafsuquuna kuwa yani daacada ilahay ka baxa kuwo jidka ka baxa oo xaqa ka baxa ahaanshahay ahaayeen daraaddeed ayaa saa loo yeelay saxiix albukhaariga waxaa ku soo arooray min xadiidi abi hurayra inuu nebigu yidhi sal lla lay wasalam qiila libanii israa'iila idkhuluu lbaaba sujada reer bani israa'iil waxaa lagu yidhi albaabka gala idinka oo sujuudsan waquuluu xitatun dembi dhaaf baan rabnaana dhaha wuxuu nebigu yidhi sal lla lay wasalam fadakaluu yazxufuuna calaa astaahihim magaaladii bay gelaan ayagoo dabada ku siqaya fabadaluu waqaaluu xabbatun fii shaciira meeshii la yidhi idinkoo rukuucsan ama sujuudsan magaalada galana intay fadhiisteen bay dabada ku siqeen ayagoo dabada ku siqahaya bay magaaladii galeen meeshii la yidhi dembi dhaaf baan rabnaa dhahana waxay yidhaahdeen xabad qamandi ah oo tin ku dhex jirtaan rabnaa waxaas macaajignimadooda ark bal dabadood ku siqdo iyo foorrood ku gasho kee kuu fudud soo fooror kama fududa inay daba ku siqaan maxaa ku kalif waa inay ilaahay dabamarteeyaan wax kale maaha istihzaa iyo jees iyo amarkii ilaahay inay daba maraan baa dabada inay ku siqaan u geysi wa ilaa wax maslaxo ku jira male dembi dhaaf baan rabnaa dhahana waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa xabad qamandi ah oo tini ku dhex jirto oo iyadana maxay faa'iido leedahay waa hadal aan macno lahayn oo maalaa yacni ah hadal aan macno lahayn oo maalaa yacniya wey laakiin ujeeddadoodu waxa weeyaan kii ilaahay inuu daba maraan w saas macana marka ummad aad u macangegiin ah oo garmaqaatayaal ah oo meeshii ilaahay u dira mooyaane meesha kale uun aadi dabamartayn uun dhaqankaasay lahaayeen reer bani israa'iil oo alla ku tilmaamaya subxana wa tacala xadiidkaasi marka waa xadiis saxiix marka waxay bedeleen hadalkii lagu yidhi hadal aan ahayn waka hadalkii lagu yidhi muxuu ahaa foorar ku gala dabasiq bay ku bedeleen waxaad tidhaahdaan dembi dhaaf baan rabnaa xabad qamandiyaan rabnaa bay ku bedeleen hadalkii la yidhi hadal aan ahayn bay ku bedeleen saasaa laga wada markay dabamartadaas sameeyeen iyo khaladkaa weyn iyo edabdarradaas ayaa alla subxaana wa tacaala samada cadaab kaga soo dejiyey rijsigu waa cadaab madaacuun buu ahaa axaadiista nebiga waxaa ku sugan sal lla alay wasalam in daacuunku uu ahaa cadaab ilaahay ummadihii inaga horreeyey kusoo dejiyey marka inuu daacuunka ahaa waa suurtagal inuu ahaa cadaab nooc kale ana waa suurtagal cadaab baa ilahay kusoo dejiyey subxaana wa tacaala cadaabka la cadaabayna lagama gardarnayne fisqigay ku kaceen iyo amarkii ilaahay ka baxeen sababtiisa ayuu ku yimid wey fabadala way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey way bedeleen ay bilqawli aladii qiila lahum wey hadalkii lagu yidhi bay bedeleen kay ku bedeleen unbaa laga sheegay laakiin kay bedeleen waa kaan hore usoo sheegay soo ma fabadala way bedeleen aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey hadalkii lagu yidhi way bedeleen qawlan hadal bay ku bedeleen oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yidhi hadalkii lagu yidhi hadal aan ahayn bay ku bedeleen
فأنزلنا وانصودجنا على الذين كوي دشوا ظلموا ظلمك السمية أو خلفك كوكعي إلا ظلمك وخلفك السميين رجزا بانكسودجنا عذاب من السماء حق سلامك كسودجنا بما كانوا وحي أهايين درادي يفسقون قوة إله طاعدي سيء يعني حق كبح شدك السحلة بحيتان كي كبحين يكل إحدان صوت يضع سلوك سودجيه معنا بني إسرائيل مكة نقولنا عسى إلا ينوغور من بني إسرائيل وحا كوشرتا إنك حدين الله أمدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني وحوغا درسي وانا أبا ينوغوش ورنمان كاسي وحي كوكعينها كوكعينها حداد كوكعدانا تيل مريء أمبا إذن كان الله يدين مرين درسي قال الله هذا كوشرا وحويان نبي محمد بو كوشرا صلوات ربي والسلام عليه والرسول كوالا دبه حالده وحو كوشرا الله دبيه وحا مركا لليه haddii nebi yow lagu dhibay oo ummadaada qaar ka mid ay ku dhibeen waa lagaaga horreeyey oo rasuul baa kaaga horreeyso muuse kow ka yahay marka haddii lagaaga horreeyo waa inaad iska sabirto iska dulqaado rasuulku sal alay wasallam waa kii dhihi jiray maalin maalmaha ka mid oo la dhibay raxima allahu muusa faqad uudiya akthara min hada abu nabi sal alay wasallam ilaahay muuse ha u naxariisto waxaa la dhibay inta aniga la dhibay in ka badan baa la dhibay nabi sallallahu alayhi wasallam marka waa dayash sabirsi way macna iyo tacsiye nabiga loo tacsiyeeyo sallallahu alayhi wasallam qisaskan marka yani duruusidaas ku jirta inaga la darsi baa inoogu jira nabigana tacsiye u tahay sallallahu alayhi wasallam wa idh istasqa Musa liqawmihi xalla sii wada yani aayadihi kutusay macagagnimadooda iyo dhaqan xumadooda wadhkur waxaad xustaa nabiga idh waqti istasqa وورو ضلبي موسى مركو ورو ضلبي لقومه تلكي مركو ورو ضلبي يعني مركو أعطصدي بيو أي عبان فقلنا مركا وحن نري اضرب لفوق بعصاك أشاد وحد كله فتا موسى الحجر بقح كله بقح يامتك منه فانفجرت وكله فتي فانفجرت وحا برقتي منه حقيسة وحا كسو برقتي دقحا حقيسة 12 لبي طبعا عينا من عين وإلا لبي طبعا إلوض باك برقتي قد علم وي أقادين كل أناس ضد والبا ضد كل قد غير والبا أقادي مشربهم مكان عبدتان كودي ماشي كجري لهايين وكعب لهاية كالين تودي وي أقادين وي برتين كلوا علما كني من رب سبحانه وتعالى كلوا علما كني أو واشربوا عبا من رزق الله إله رزقه سعونا وكعبا ولا تعثوا حالا فسادنين في الأرض دولك تحدثا فسادنين مفسدين حلاءة كو فسادنين دولك لا حقسين أو هلبنا قسك يلبك كداية إذن كو فسادين يبالي يعني مركي afartankii sano ee tiihaha ee wareerka ahaa reer bani israa'iil lagu ciqaabay ayay oomeen biyay u baahdeen nebi muuse ayaa marka ilaahay u weydiiyey inuu waraabiyo ilaahay qowmkayga waraabi buu yidhi nebi muuse markuu qowmkiisa u warow dalbay oo ilaahay u weydiiyey inuu waraabiyo bal taana xus baa layidhi nebiga sal alay slam markaasaa waxaan ku nidhi ushaada aada wadato waa ushii cajiibka ahayd wey ee mucjisada ahayd ee marna halaqa iyo abeesada noqonaysay marna usha caadiga noqonaysay ushaada aada wadato waxaad ku dhufataa dhagax un alxajarada dhagax khaasa maaha sida raajixa dhagax alla dhagaxaad soo martaba ku dhufo mid alla midkaad rabto kuu dooni ha noqdo dhagaxa markaad ku dhufto ilaa ka soo burqanay nebi muuse calayhi salaam dhagaxii buu ku dhuftay 12 ilood baa ka soo booday 12 ilood waxaa looga dhigay iyaga waxay ka koobnaayeen 12 lafood laf walba iyo qoys walba marka waxaa loogu talagalay inay kaalin gooniya ka cabto saas daradeed baa waxaa layidhi qolo walba iyo dad walba iyo reer walba wuu ogaaday kaalintuu ka cabi lahaayee biyaha ka geli lahaa wax lagu murmay iyo wax laysku qabsan midna ma aha war idinkuna wataa kaalintiinniyo halkaasaad ka cabaysaan idinkuna halkaasaad ka cabisaan ishiinni wataa qolo walba ishoodii baa gooni loogu maray macna saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala markii biyahaas loo soo burqiyey ayaa marka waxaa lagu yidhi cuna oo cabba risqiga leh risqiga ay cunayaani waxa weeyaan waa manigii iyo salwadaa soo marnay wey macna shimbirihii dubnaa
iyo manigii galladii usoo da-aysay taa weeyaan waxa cuna la leeyahay caadana waxay ku dhacaysaa ishan biyahan ka soo burqadayna ka cabaaleen kulli waa risqi ilaahay idin siiyey macna maydaan ku dhibaatoonin ceel aad qodeen ma aha il aad idinku soo burqiseen ma aha rafaad maydaan u marin waa risqi ilaahay idin siiyey subxana wa tacaala laakiin fasaadka dhulka ka daayay qaska iyo labka dhulka ka daayay oo macaasida iyo dunuubta aad dhulka ku qasaysaan ood ku fasaadinaysaan ka daaya yani dhibaatada aad wadaan iyo khaladka aad wadaan iyo macsiyada aad galaysaan daayo oo ilaaha intaa idiin galay u mahad celiya ma inta ilaahay intaasoo dhan idiin galo idin xanaaneeyo oo sidaa rabbi subxaana wa tacaala idiin koolkooliyo baad haddana dhulkiisii iyo risqigiisii ku caasinaysa ha yeelina baa laleeyahy ha yeelina saas way macnaha wadkur xus nabiyow id waqti istasqa uu warow dalbay muuse markuu warow dalbay nebi muuse calayhi salaam liqawmi qowmkiisii markuu u warow dalbay oo uu biyo ilaahay u weydiiyey biyo ay cabaan liqawmihi tolki faqulnaa markaa waxaanu nidhi idrib dhufo muusow bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa alxajara dhagaxun asha ku jirta jinsiye un iska dhig cahdiye maaha fanfajarat markaa waxaa burqatay wuu ku dhuftay ba halkaa ku jira ilaan burqashada iyo dilaaciddu wax imaanu dhufashada kadib wuu ku dhuftay fanfajarat waxaa burqatay oo dilaacday minhu dhagaxa xaggiisa 12 caynan oo ilood il durdurayso biya qad calima way ogaadeen kullu unaasin dad kulligood yani reer walba way qoys walba iyo laf walba way ogaatay mashrabahum makaana cabitaankoodii meeshay ka cabbi lahaynay kaalintoodii way ogaadeen kullu cunaba marka lii oo washrabuu cabba min risqi illahi ilahay risqigiisa wax ka cuna oo wax ka cabba walaa tactawha fasaadinino ha qasina fil ardi dhulka ha qasina mufsidiina xaalaatin kuwa fasaadinaya mufsidiinada waxaa loogu adkeeyey waa masdar mu'akide waxaa loogu adkeeyey ruuxu markuu khalad samaynayo khaladkiisa uusan u haysanin inuu khalad yahay iyo waxaa kala gedisan markuu khaladkii samaynayo inuu samaynayana sogyihin marka mufsidiinadu khaladkii way samaynayaan haddana waa ogyihin inay samaynayan waa u qasteen way macnaha saas weyaan idinkoo fasaadinayo aan yani waxa weeyaan jahli idiin geynina og ha fasaadinina macnaha saasa laga wado oo masdarku faangenaya wadkur xusba lilnabi sal ly wasalam id waqti wadkuruu xusbadhe bal waxaad xusuusataan reer banu israa'iilow id waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira dul qaadan mayno calaa طacaamin cunto dusheed iyo quud dushii waaxidin oo mid ah hal cuntaa uma dul qaadan karno maxaa ortaan marka ee fadcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo baryo noo tuug yukhrij saaree lanaa annaga ha noo soo saaro mima tunbitu lardu waxay dhulku soo saarto qaarkii ama ma'kuulan wax la cuno ha noo soo saaro oo mimaa shay ka mida tunbitu lardu dhulku ay soo saarto min baqlihaa yani waxa weeyaan nabaadkeeda wa qithaa'ihaa iyo qisaheeda dhulka qisihiisa wa fuumihaa iyo toonteeda wa cadasihaa iyo cadaskeeda iyo wa basalihaa basasheeda qaala markaasaa wuxuu yidhi nebi muuse atastabdiluuna miyaad bedel qaadanaysaan alladii midka huwa isaguba adnaa hoosaynta badan biladii kii miyaad ka bedel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayrka badan ma mid hoosayn badan baad qaadanaysaan ood ku doorsanaysaan midkii khayrka badnaa ihbituu hoofta baa layidhi oo dega misran magaalo un dega yani waxaad degtaan beled un dega fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum waxaad weydiisateen waxaad codsateen waad leedihiin waduribat waa la yeelay waduribat waa la laazimiyey oo waa la shabaday waa la dhajiyey calayhim dushooda adillatu dullinimo ayaa lagu dhajiyey darxumo iyo dulli waalmaskanatu miskiinnimo iyo cayrnimo faqri wadaa'uu way laabteen biqadabin cadho ayay la laabteen oo minallahi xagga alle ka ahaatay dalika kaasina cadhada ay la laabteen sababkeedu waxa weeye biannahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa gaalooba biaayati illahi ilahay aayadkiisa kuwa ku gaalooba oo wayaqtuluuna laaya annabiyiina nebiyadana laaya bigayri lxaqi gardarro ku laaya bigayri lxaqi xaq darro ku laaya dalika kaasi sababtiisu waxa weeye haddana bimaa casaw caasiyidooda daraaddeed waxay caasiyeen daraaddeed rabbi amarkiisuy caasiyeen
وكانوا أي أهايين يعتدون كواحد سودمه إلهي وتشيحينا أي تلا بشريه معنا تنوع من كلام وعن صوشة إنه صامرني الله سبحانه وتعالى إنه الدياري عمت الديارة إيا عبتان ديارة تيبي يواد كي سوائي ويكشف عليه وحيدا الموصو هل عمتا ومضوا القادم كرنا نو منيقا إيا صلوها سودة هي هلك عمتا أنه وصبر كرنا ومضوا القادم كرنا وعمتنا اسكت يحسن ومضوا القادم كرنا دي وهل عمتا ما هين لما عمتا إذا هيدا معي هل عمتا وليه cuntada noocay dooniba ahaade hadii iyadoo xataa farabadan oo isku jirta maalin walba oo iyadii lagu keen hal cunto marka cuntooyin noocan rabnaa ee waxa sameeyay rabbiga noo bari annagu waxaan rabnaa dhul beerataan nahay oo dhulkaanu beerna wax kala soo baxnaaye in dhulka wixii ka soo baxayna loo soo saaro waxyaabaha dhulka ka soo baxa ee bini aadamku dheebsado kuwaas rabnaa inuu ilaahay noo soo saaro risqiga sabada ka imaanayo wax loo soo dejinayo naga daa midaan dhulka kala soo baxnaa rabnaa oo ku rafaadno طيب تيبي سي عدينا waxay yiraahdeen min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha waxyaalaha ay dhulku soo saaray ay doonayaan bay qaar kamida magacaabeen waxa kamida baqliga waxa la yiraahdaa waa nabaad kasta oo dhulka ka soo baxa bini aadamkuna cuno al-baqlu waxa loo isticmaalaa geedaha dhulka ka baxa wax kasta dhulka ka soo baxa waa laba mid ama waa baqli ama waa shajarka waxa la yiraahdaa markuu gun uu isku taagalay oo uu dhulka ka kacsan yahay ayaa waxa la yiraahdaa shajar mar hadduu san gun uu isku taago uu san lahayn oo dhulka ku dhagan yahayna baqli baa la yiraahdaa saas weeyaan baqliga marka waxay ka wadaan inta bini aadamku dheefsado waxa soo galaya khudaarihi waxa soo galaya fagalkii waxyaalahaas oo dhan baa soo galaya macnaha baqliha waa nabataadka dhulka aan ka kicin bini aadamkuna uu cuno oo dhan baa soo galaysa min baqliha saas qithaiha isagana waxa weeyaan waa bahal la yiraahdo yani wuxuu u eg yahay qarah wadadadu qaridii jireen la qaarkood laakiin qaran ma nooca qarah oo kale wey laakiin qaraha wuu ka dhuuban yahay markuu soo baxo salka waa u dhuuban yahay markuu salka meeshuu geedka ku hayo kasii tagabana uu sii buuranaya marka qaraha waa u egyahay salar ahaan baa loo isticmaalaa marka suuqyadu yaalla khiyaarkana wuu ka yara gaaban yahay khiyaarka iyo yani waxa weeyaan yani qisaha iyo baalka la yidhahdo qaraha iyo waa isku noociyaad isku fasiilo laakiin wuu ka yara kan yani waxay farfawaariq yar baa u dhaxaysa macna marka qithaiha waa kaawi qaar bocor bay dhahaan bocor cagti waxaasay qaarkood dhahaan yani waxa weeye qaarna khiyaar bay macnaha ku fasiraan qaar waxay ku fasiraan macnaha waxa qarahay ku fasiraan laakiin waa nooc gooni oo iskii madax bannaan suuqyada waad ku helaysaa macna طيب وفومها فومك يعني لما معنى والدها طون طوال بها وحكروا لي هذا قمنددا لما نبغى يكون فسرن تسلفكم marka toon iyo qamandi waa rabnaa caadaskana isagana waa mid kan caan kale yaqaano yani waxa weeyaan yani baashan sarreen kale ilaa buu wax yar leegleeg ama digirta yar taab leegleeg wuna midabha uu ka gadisan yahay wuxuu u egyahay burtuqaalka linta yani waa weyn uu midabha uu egyahay marka sidiisana waa loo karsadaa inta la shiidana yani waxa weeye rootiga waa lagu cunaa marka cadaska suuqyadu isaguna yalla macna suuqada tawakiilsan cadaska macna wa adasiha basalihana waa basasha taqanin marka cuntooyinka noocaas aan doonaynaa in dhulka looga soo saaro taasaanu ka rabnaa Muuse inaad Ilaahay noo weydiiso nabi Muuse alayhi salaam wuxuu ku yiri war matanxun waxan xunxunka ah ee hooseynta badan ee rafaadkiya dhibka aad u maraysaan tan laydiin soo dejiyana aan xagga tayada iyo wanaagga ku gaaraynin matanaad ka bedel qaadanaysaan tii fiicnaydna miskiga tageysaan khayrka badnay see caqligiinu xagee jira labadaas laba la isku doorsado ma yahay haddaad taadayseen dayn weydeen war waxaan ilaahay idiin soo dejinayo daystaan idin leenahay aydan ku rafaadaynina iska diyaarka dhulkan kadaata iyo waxa ka soo baxayana iska daaya laakiin haddaad dayn weydeen soo maaha ihbitu misran magaalo un dagaali meel un dagaali macna misran ta waxa fiican laga dhigo misran min al-amsar yani balad beladiyada kamida daga
masartan ma aha inkastoo cilmada qaar ka mid ku fasireen waa laga fiicay magaalooyinka ka mida ama yani beledyada ka mida dega waxa aad weydiisateen waad leedihiin haddaad laydinka kari la'yahay dhul inaad wax ka soo saarataan waa laydinku sii dayn ayib rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala macaasidaa faraha badan iyo dunuubta markay ku kaceen kadib dushooda waxaa la yeelay dullinimo inay liidnaadaan oo dullaysnaadaan oo ay darxumo ku noolaadaan maskanana waa la yeelay dushooda waa miskiinnimada iyo faqriga caydhow inay xoolo la'aan ahaadaan ayaa dushooda la yeelay ama in dillada iyo maskanadu way isku macno dhow yihiin ama kala macno dhow intaa marka waxa weeyaan ay adduunka ku nool yihiin buu ilahay dusha kaa saaray subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye maalinkii ay mamlakadoodii iyo dawladdoodii ay suushay ilaa wakti dhow ummada hoostoodun bay ku noolaayeen waa ka ayad kale noogu imaan doonta yani bixablin min allah yani ayad wabaau ila bixablin min allahi wa xablin min annaas xarig ilaahay inay ku noolaadaan haysigiisa iyo xarig dad inay ku noolaadaan labada mid wey xarigga ilaahay hadday gooyeen ku dad unbay ku noolyihin ummad kale unbay hoos fadhiyaan intay muslimiinta dawladahoodu jireen oo hal dawlada ay ahaayeen jizya laga qaadi jiro muslimiintay ku hoos noolaayeen iyagoo dullaysan oo ihaanaysan intii ka horraysay islaamkana bulshooyin kale unbay ku hoos noolayeen oo marna carab bay la noolaayeen marna ciraaq bay ku noolaayeen oo lagu dullaysan jiray qaarkoodna shaam bay ku noolayeen oo lagu dullaysan jiray markii dambena adduunkayba u qaybsameen oo reer bariguna qaar bay haysteen oo gumaysanayeen reer galbeedkuna qaar bay gumaysan jireen hadda 50 sano ka hor unbay waxoogaa madaxa la soo kaceenoo dawlad yar meeshan ka samaysteen ha samaysteene dulligii miyay ka baxeen may weli qabayna reer galbeed unbay weli daba fadhiyaan sooma reer galbeed unbay weli daba haba ku adeegsan laakiin weli ummad uun inay ku gabadaan mooye iskoodu ma madax banaana gaaban oo dulligiibay mar labaad ku noqon doonaa madaxa laga garaaci doona marka dulli baa ilaahay saaray oo laazimiyey sidii wax ku dhagan oo lagu shaabadayoo kale laga dhigay saasaa rabbi subxana wa tacala uli waduribat calayhim adillatu walmaskana waa lagu dhajiyey oo dushaa laga saaray oo waa lagu shaabadeeyey weligood ma faaruqaysu rabbi ilahi subxana wa tacala ayib waxay la laabteen caro xagga ilaahay ka timid caro ilaahayna way la noqdeen oo waa ummad loo carooday maxaa loogu cadhado intaasoo dhan loogu sameeyey waxaa loogu sameeyey aayaadkii ilaahay ay ku kufrin jireen iyo nebiyadii ilaahay ay gardarrada ku laayeen oo ma nebi baa dilkiisu marna uu gar noqdaa maxaa loo yidhi bikayri ilxaqi ma mar baa nebi dilkii gar noqon kara maya ee waxaa laga wadaa marka ay dilayeen way og yihiin dilkay nebiyada dilayeen inay gardarro tahay ayagoo og inay gardarro tahay bay haddana nebiyadii ilahay laayeen nebiyo fara badan bay gacantooda ku dileen saas way macana waxaa kaleeto oo arrinkaa loogu geystay ilaahay amarkiisii ay jabiyeenay khilaafeen cisyaankay ku kaceen iyo xadgudubkii ay sameeyeenoo soohdimihii ilaahay uu dhigay ee uu yidhi ha gudbina ayay tilaabeenoo gudbeen way macana saas weeyaan wadkuruu xusta reer bani israa'iilow id waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira sabri mayno dul qaadan mayno calaa dacaamin cunto dusheed waaxidin oo mid ah mannigan iyo salwigan halka cunto ah uma dul qaadan karno ee fadcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij ha bixiye lanaa annaga ha noo soo saaro mima tunbitu alardu waxyaabaha dhulku uu soo bixiyo waxyaabaha uu dhulku soo bixiyo qaarkii ha noo soo saare ama ma'kuulan mid la cunaha noo soo bixiyo oo mima tunbitu alardu waxay dhulku soo saartaa min baqlihaa ka bedel min baqlihaa baqasha yani bagalka nabaataadka dhulka ka soo baxa wa qithaa'ihaa khiyaarka ama bocorka wa fuumihaa digirta waxaan dhihi lahaa wa fuumihaa toonta ama qamandida wa cadasihaa iyo cadaskeeda wa basalihaa iyo basasheeda dhulka intaasoo ka soo baxda ilaahay ha noo soo saaray noo weydii qaala wuxuu ihi atastabdiluuna miyaad bedel qaadanaysaan alladii midka huwa isaguba adnaa hoosaynta badan warma midka hoosaynta badan cuntada hoosaynta badan miyaad bedel qaadanaysaan biladii can iladii kii xaggii miyaad ka bedel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayrka badan kii khayrka badnaa intaad isnacdaan miyaad kan hoosaynta badan ku bedelanaysaan ihbituu hoobta baa lidhi oo dega misran beled uun dega fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum waxaad weydiisateen oo codsateen oo dhulka inaad ka shaqaysataan waa laydinku sii dayn waduribat waxaa la yeelay
وضربت وحنا اللازميي أو لدجي عليهم دشودا الذلة دلنمو إيو درحمو إيو إني ليدنادان والمسكنة إيو مسكينيو إيو إني مروا البعير إيو يعني كعنك لكنا هذا مسكنة وحا لغولا حتى هذي وحيستان وفقروا حتى وهذي وحيستان ودركسيهين أو كمبينية أدونك أقوى وين أي كعنتو ذا كتشرتو باهد ولقد كبحمس وباهي إني باهي نوعد تزي يهودي إني واحد فسادي سمو يعني أو أي أدونك فسادي سمو هي أدو إيوه هي أدو سمفلع أو يهودي لا رح أو قرمانيس أو بني آدم كدباتوينكم ماشي وحكا قبل يسوي لك المدركة شركات كأدونك وقوة وين وقوة ولا بضل يهود بس كله صوت العيد والمسكنة حوالها قعنت هذا كتشر إلا غني معه غني لماذا محل لنا إنما الغنى غنى النفس إن قلبك أجهضم سنما يقرع إلهي قليون مركا والمسكنة وفقر يباهي بمرور بكتشراوي معه تاسع بوشة الله ساري وباءوا وإلا سن بغضب على أي الله سن ومن الله حق الله كأحد ذلك سوى وحوي بأنهم يجوا كانوا إلى هاي يكفرون كوجالوا بآيات الله إله آيات كذا كوجالوا أو يقتلون الدلاء الله النبيين النبي الله يحيى النبي وكتر عليه الله بغير الحق حق الآن بكل عين يجردره نبي قديل في سمرنا قرم النقدة لكن ويقوا جاي المركي لين إن يجردرت ذلك كاس سبب لبعض بالشيء ذلك كاس وكيس وحوي بما عصوا عاصي لماذا أي كوك عند رد إلهي أمر كيس أي عاصية بما كي درادي ويعصوا أي عاصيا أو كانوا أي أهيا يعتدون كواحد كتبه أو إلهي السهدي مده جاحي بيت الله بيين عصيان كمرك واحد كفصرتا أمر كي إلهي بيت شبيين اعتداءنا واحد كفصرتا وحي إلهي كربي بيت شيرين أو معنى حد تلابينه دنبيي قلين حرامتي بيقول بعدين انتي حلاشي ككتبين ساسوي معنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قوى آمنوا الرمي والذين قوى هادوا يهودوبي والنصارى والصابئين قوى آن دين قادم إلهي يقان لكن دين قادم من آمن عدي الرميس بالله إله الرميس واليوم الآخر يمان كتنبه وعمل صميس صالحا عمل ولس فلهم وحاوسنا ذي أجرهم أجر كود إليهم عند ربهم رب ولكس ولا خوف وحصينا عليهم دشوا ضماهن ولا هم مرعين هل يحزنون كومرك الجن آيات وحي يعني أي حديد أسيبس روح إنه مذهب كفانه مذهب أو إلهه أنه يهودي بانه أما أو إلهه أنه النصراني بانه أما أو كفار إلهه أنه الصابئي بانه أما مجوسي بانه أما أنه مؤمن بانه فان عن عمل لسه عنين إيا عقيدة بالديدية ويهود بانه نهاية وشعب إلهي دوطي بانه نصارى نهاية وأنك أمضح أغفي عنه يعني وحوي صابئين بانه نهاية أنك أغطوصا warkaas oo dhan baa xididada loo siibiyay arintu nasab sheegasho ma madhabna wax ku tari maayo yani wax way abtirna wax ku tari maayo sheegashada waxba ku qaban mayso dhaqan iyo aqeedo wax ku qaban haday yahuudiyiin iyo haday nasaara yihiin iyo haday saabiin yihiin iyo haday dadka iimaaninta alle iyo maalinta aakhira rumeeyay yihiin intoodas iyo mu'miniinta روحي الله يمانين تآخر رمية عمل صالحا لي ماذا روحا سي أجر كي سيلها اكتوا روحي الله يمانين تآخر رمية عمل صالحا لي ماذا عمل كصالح وفي النقنكرة واجي النبي موسى وشوي عليه السلام صالح عمل كوفوها مركي شرعي النبي موسى لوافج طورت النبي عيسى مركي الله صوت برينا عمل كوفو صالح أها مركو وافقسيها شرعي النبي عيسى الليمس عليه الصلاة والسلام لكن مركو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل كوفو صالح نقوم كرا مركو وافقسيها شرعي النبي محمد الليمس صلى الله عليه وسلم عليه ساس براده يعني وحي لم يتهي الله سبحانه وتعالى دين الإسلام لماذا أهل ما أقبله ساس معنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
عملا صالحا تاسي صالح ونقوم كرا مركو شرعي نبي محمد لي يمد ورعوي معنا مركا انتاد كتما دا يهود بنا نصارى الله صابئين بنا شرعي وقدم به شرعي الله سود تشيو كي نبي محمد لي يمد الرعوي ساهم بعض معنا الى اكتس ابا المدك ليسان اجر نكوه ليسان عبسينا كقبح ليسان والبهار يمرقنا تكسيق يساوي معنا مركا قرني انت كلي آمنوا قرني هادونا قرني نصارى قرني صابئين تيجي نصارى دوا كريستن كون هو الشيخ توي إن النبي عيسى الرعسيين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صابئين تيالي هذا على سكوك إلى سنة يوم مفسرين تعبوا هم رسين لكن هذا التفسير بينك قادرين تفسير كواحد يتكلم مجاهد هي عطاء بن أبي رباح سعيد بن جبير ابن كثير له الرجحية وحي إليه وحى إلى لا وضد يهودنا هين نصارنا هين إلهي وهي قاننا لكن واحد دينه وكلاء يهيستان ويكون رقمان مجرد إلهي كريه إنه تشريه رميسنايا لكن شرعي أي رعسيهين ملك ومضمع عاسو كلاء مركة تشريه أو فطردي إلهي كو أبوري إسكاقسوغا دين فطرد وحويان إلهي تشريتان كيسا إنه كليئي تشريه رميسيه سنة مع عبدان ريح مع آلان يهود مرة عصنا نصارى مرة عصنا ألا كليئي إنه تشريه رميسيهين حدنا مع ذلك واحد دين وسوق قال له دينها سماوية ويرعسيهين مجد قلنا صادقين تلين هذا مركا واقع كم إذا كوعيه مركا تشري ساسوي معنا إن الذين كوا آمنوا رمي إيه والذين كوا هادوا يهود رمي إيه والنصارى الكريستنكا والصابئين إيه كوا يعني الله يقان واحد دين الرعسيهين أيضا تشرين النبي صلى الله عليه وسلم مركو دينه إيه نقنكي أولوية خلافي السجي الصحابة دي سوى صابئين لقمدي صابئين محايا لإلهي كيرجي هلا عاودين لي مادين نين الله نينكي مركز سيدا الرميسان صابي بيدي جرين ومضى هوريع إلهي كيرجي تقانبي كشبهية والصابئين تصف والصابئين يقوى إلهي كيرجي يعني الرميسنا شرعي الرعسيهن أين جرين انتو ناسي من آمن الروح الرمية بالله إله واليوم الآخر يمان انت آخر الرمية وعمل سمية صالحا عمل وناسا فلهم وحوصنا لي أجرهم أجر كذا وأجر كذا أصبنا لي يعني عمل كيسمي أبال قدكيس عند ربهم ربي وذاكيس ولا خوف وحفصينا عليهم دوشا ضمأها مستقبل كآخر عزيز مقليس ولا هم مرعينا أن يحزنون كون مرقعوا والبهارة الدنيا دي واحد كريم دوه معنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بطور مركوحوي ريه بالبرع يتقالا ليه يميد بكاسا ليه يددك نقوش رفضنا يعنيهم باكشرة ورقا انت كتماتوا عمل ونازين عقيدة ونازل ليمو تاهم باكو عن ذلك لكن كرامة هي ورقا ذكبح واذكروا حسب لي واذكروا حصوص بني إسرائيل إذ وقت أخذنا أنقضني ميثاقكم بلنيالكيني بلنتيني لأذكيي مركان قضني ورفعنا عن قرية اللي فوقكم كركينا آية لي رفعنا عن قادني فوقكم دشينا الطور بورتي مركزا وحن إذن كنري خذوا قاطع ما آتيناكم وحن إذن سيني بقوة حيك قاطع أي بقوة وحويا ددال كقاط سيد ددال كتشرو وقاتل معنا واذكروا حسا ما فيه كان ليدن سيدحدي سوحا كيال أخرية أو كعمل فلق لعلكم واحد مدنتهم تتقون إن دورتانو إلهي عذاب كيسا دورتان ثم مركا كدبنا توليتم واتيستين من بعد ذلك كاقداشيس بلن كاقداشيس مركا ليدن كقاد واتيستين فلولا فضل الله فضل إلهي هدو سنجير إلهي عليكم دوشينا أفضلي ديرات سينت إلهي دوشينا ديرات سي حدين تشير إلهي والرحمة يلا حريستيسا حدين تشير إلهي لكنتم وحد أهان الله إذن من الخاسرين كوا خساربك من الله إذن تنوع ياهي رب سبحانه وتعالى مركو كتابك توردها سودة شيء أيها ربني إسرائيل وحد الله لك قاضي كتابك تورد إلي قاضنا يانا وحو إلهي تحديث كل شيء أو أحكام إيا مبادئ أنا إني أهو كان سويان كتابك مركو سوق علي بلنتي إلهي وكاقا على إني فليان ما أي أحيث أيين السوتاك واديدا بور انت السوق علي طامر حلقة صاري دوش شوضان الصور لك بورتي مركزا وحا ليلي حداد قادو ويدان وولي وسيد دان كتشيرو أدو قادو ويدان بورتهم بالي نكو سيدين حال إذن كهرم ماي
markii way ismiskiiniyeen oo wax ogol bay iska dhigeen buurtii markii laga qaadayna meeshoodii bay ka miiseen saas macna marka taana bal xusuusta balay waad jeedsateen mar alla markii ballantaa laydinka qaaday ballantii inaad fulisaan ama ahayd baad ka jeedsateen oo ilaahay hadduusan naxariistiis iyo fadligiisu ayna jiri lahayn uu tawbadda idin waafajiyey soo laydinma baabiye haddayna taasu jiri lahayn uu kuwa khasaaraad ka mid noqon lahaydeen waxaa laga wadaa inta laydin halaagoo laydin tirtiro ayaa markaa kadibna ilaha cadaabkiisa aad ku waari lahaydeen subxana wa tacala saas weeyaan marka waxa aadan ku fakateen waa alla naxariistiisa iyo fadligiisa uu dushiina saaray intaasaad ku fakateen laakiin caqli aad leedihiin iyo cilmi aad leedihiin iyo camalkiina kumaydaan fakanin idinku halaagiiba afka uga gashanaad isku rideen laakiin ilahay baa subxaana wa tacaala fadligiisa idin badbaadiyey wey macna sidaas weeyaan wadkuruu xusa reer bani israa'iil id waqti akhadna aan qabanay waxay la mid tahay aayadda inoogu maan doonta fi suurati alacraaf waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dullatun wadannuu anahu waaqicun bihim khuduu ma aataynakum biquwa buurtii aan dusha ka saarnay markaasaan idhi qaata waxay weliba maleeyeen inuu ku dhacayo buurtu kusoo dhacayso marka aayaddaasay la mid tahay wadkuruu xusuusta id waqti akhadna aan qabanay miihaaqakum ballantiinni markaan qaadnay waxaad xusuusataan reer bani israa'iilow id waktigii akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ballankiinnii aanu qaadnay ballanka la adkeeyey baa la yidhahdaa ballanka kalsoonida leh ee la adkeeyey ayaa la dhaarta lagu adkeeyey oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiinna adtuura buurtii ma buurtii nebi muuse lagula hadlay baa laga wadaa mise buur un baa laga wadaa buur kale wey buur kale laazim maaha inay noqoto buurtii nebi muuse lagula hadlay calayhi salaam maxaa yeelay waid nataqna aljabala baa kutusayso fii suurati alacraaf inoogu imaan doonta insha allahu tacala khuduu waqulnaa lakum waxaanu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay kitaabkan aan idiin soo dejinay qaata biquwatin awood qalbi ku qaata si dhab ah oo dadaal ku jiro oon ciyaar ahayn u qaata lama rabo sharci ilahi hadduu soo dego oo uu ku soo gaaro inaad isku fududaysa ma dadaalkaaga oo dhan inaad ku bixiso way sidaad u qaadan lahay biquwatin oo wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisa ku jira oo akhriya kuna camalfala wey axkaamta ku jirta iyo yani mabaadida caqiidada ku jirta qaata oo ku camalfala xusa oo wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisa lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isdhowrtaan oo cadaabka ilahi iska dhowrtaan cadaab ilahi inaad ka badbaadaan ayaad mudantihiin wey macnaha uma kadibna tawallaytum waad jeesateen ballantaa kadib uma kadibna tawallaytum waad jeesateen min bacdi dalika miihaaqa iyo ballankaa kadib falawlaa fadlullah fadl ilahi hadduusan jirin calaykum dushiina uu fadilay dheeraadsiinta ilaahay dushiina uu saaray haddayna jiri lahayn waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn oo tawbadda idin waafajiyey macna muxuu ku tafadulay inuu tawbaddii waafajiyey waraxmatu naxariistiisu haddayna jiri lahayn lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray baad ka mid noqon lahayd soo ilaahay subxana wa tacala naxariistiisa ma aha idinka oo mutay in laydin baabi'iyo inuu ilaahay subxaana wa tacala idinka baajiyo cadaabkii oo aad sii jirtaan waa naxariis ilaah marka ka shukriyo walaqad calimtum aladiina actadaw minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin dhaqan kale ku kaceen ilaahayna subxaana wa tacaala qaar ka mida uu ku baabiyey iyaga walaqad calimtum waxaad ogaat xaqiiqaha waxaad ogtihiin reer bani israa'iilow aladiina kuwii baad ogtihiin ictadow xadgudbay oo minkum idinka mid ah fi sabti maalinta sabtida dhexdeeda maalinka sabtidaa kuwii xadka iyo suhdinta tilaabay oo idinka mid ahaa baad ogtihiin ood ogaateen faqulnaa marka aan ku nidin lahum iyaga kunuu ahaada qiradatan daanyeero ahaada khaasi'iina daanyeero ahaada khaasi'iina oo fogaadayoo ilaahay naxariistiisa ka fogaaday fajacalnaaha degmadii waxaan ka dhignay saa loo halaagay jacalnaaha degmadii waxaan ka dhignay nakaalan ciqaab lagu cibro qaato limaa bayna yadayha wixii horteeda ah waxaan uga dhignay cibrada limaa bayna yadayha degmooyinkii horteeda ahay xagga hore ka deganaa wamaa khalfahaa iyo degmooyinkii gadaal ka deganaa wa mawcidatan waana ayaan ka dhignay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya waanaan uga dhignay tu ay ku waantoobaanoo ay ku yani qusqaataan oo ku sajroobaan waxaad ogaateen reer bani israa'iilow ood horay u ogtihiin
xadgudubkii ka dhacay koox idinka idin ka mid maalinta sabtida qisadani iyadoo gaaban baa hadda lagu sheegay laakiin fi suurati al-a'raf bay ku imaan doontaa iyadoo faahfaahsan was'al al-qaryata allati kanat hadirat al-bahri إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يدورك عيضو ذي كذا بيقصدك عن لهم مركا وحي أهيت الله سبحانه وتعالى ويقول ما لنت السبت لا ما ليقها الضمانين بمشهد التوجيه ما لنت السبت لا ما لنت السبت لا هذا اللي يريد بمشهد التوجيه ayaa ilaahay imtixaanay subxaana watacaala malaygii badda ku jiray maalmaha maalintaas sabtida unbuu biyaha korkooda imaanaya banaanku iska soo istaagayaa haddaad rabto gacantaada ku qabsanto inaad shabag u dhigato waa baahna markii sabtidu ay baxdo axaddu soo gashana badda salkeedu teg waa inay ku rafaadaan raadintiisa way xeeradaysteen marka waxay sameeyeen malaygii markuu sabtida uu banaanka u soo baxo baa waxay u qoteen barkadahaas oo biyuhu ku soo ridayaan malayga markii ay baddu noqoto maalinta axaddaana barkadahaasu marka gelaya maalinta axaddaa marka la gaadho barkadihii isagoo ku jiro ka bixi kari waayo ay marka kala baxayaan marka way xeeradaysteen oo waxay u xeeradaysteen markii la yidhi war maxaad sidan u yeelaysaanna waxay dhaheen maalin axada unbaan anagu dabanay ma annagaa soo qaqabsanay sabtidii waxbaan la qabanine malaygana axad sabtidii baa la qabtay oo dabinka uu galay oo barkada uu soo galay markay xeeladaa sameeyeen baa laba qoladaas qolo kalena waxay tihi war waxaan joojiye qolona shib bay iska tihi sida suuradda inoogu imaan doontaa qoladii shib tidhi warkoodii lama sheegin waxay ku dambeeyeen qoladii dabatayna ilaahay waa halaagay subxaana wa tacaala waxaa loo bedelay daanyeero inta loo bedelay baa kadibna la tirtiroo la halaagay qoladii waxaa soo hadhay oo la sheegay inay soo hadhay yacni tiri war waxaan joojiyey ee ka reebtay qolada la aamustayna laga aamus warkooda wuxuu ku dambeeyey allahu aclam marka qisadaa weeye halkan lagu gaabiye waxaa la yidhi waxaad horay u ogtihiin ood ogaateen kuwii xadgudbay sabtida oo idinka idinka midka ah markaasaa waxaanu ku nidhi waxaad noqotaan daanyeero fogaaday khaasiina macnaha waxa weeyaan ikhsa'uu fiiha soomaali ku fogaada wey daanyeero fogaaday oo ilahay naxariista ka fogaaday bay noqdeen ayib ciqaabta la mariyey degmada iyada ah waxaa looga dhigay waano iyo miday ku cibro qaataan degmooyinkii xagga hore ka deganaa iyada iyo xagga dambe degmooyinkii ka deganaa ayaa looga dhigay miday ku cibro qaataan haddii magaalo la galo magaalada intay hareeraheeda degan oo dhan sababtii lagu galay ay ku halaagsantay soo iska ilaalin maayaan saasaa laga dhigay marka darsi waxaa laga dhigay ummadihii eriyada ka dhawaa oo dhan cibro u noqoto macnaha waxa wey ay ku waana qaataan oo ku quus qaataan baa laga dhigay saas weeyaan waxaa kaloo waana looga dhigay dadka ilahay ka cabsanay oo inagu aynu ka midnahay oo macnuhu waxa weeye goortaad ilaahay xuduuddiisa tilowdaan macaasida iyo dunuubtana aad gashaan taasoo kale unbaa laydin marinays jiro marka innagana waana ayay inoo tahay iyo caqli celin bay inoo tahay macnaha walaqad calimtum waad ogaateen reer bani israa'iil oo aladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum idinka idinka mida fi sabti maalinta sabtida xadgudbay oo faqulnaa aanu nidhi lahum iyaga waxaan ku nidhi kuunuu waxaad ahaataan qiradatan daanyeero ahaada khaasi'iina oo naxariista ilahay ka fogaaday fajacalnaaha damiirkeeda qaryada isaga celi cuquubadana waa loo celiyahay fajacalnaaha qaryadaa iyo degmadaa waxaan ka dhignay ciqaabta la mariyey nakaalan yani cuquubo waxaan ka dhignay lagu cibro qaato nakaalan cuquubo lagu cibro qaato ayaan ka dhignay limaa degmooyin ayaan uga dhignay bayna yadayhaa iyada ka horreeyey horteeda deganay xagga hore ka deganaa wamaa khalfahaa iyo degmooyinka iyada gadaasheeda oo xagga dambe ka deganaa labadaasi waa kuwii waagaa la deganaaye kuwaasi waana qaadashaan uga dhignay iyo cuquubo ay ku cibro qaataan wa mawcidatanna waan ka dhignay waano iyo miday ku waana qaataan lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsadana kuwatu ay ku waana qaataan maagni oo yani waxa weeye caqli celin u noqoto macna waid qaala muusa liqawmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara qisooyinkii reer bani israa'iil baa laynoo wadaa wadkur xus baa layi nebiyow id waqti qaala uu yidhi muusa muuse uu ku yidhi liqawmihi tolkii uu ku yidhi ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa tolow
أن تذبحوا إن الجورعدان بقرة صع نافلوا إن الجورعدان قالوا وحيدا أتتخذنا ميان لقصة ويسانيسا هزوا جسس ونوع يارسا موسو قال وحيدا أعوذ وحن مجنجلي بالله إله بن مجنجلي أن أكون إن أهاد من الجاهلين كوا الجاهلين يعني منك جسسا وجاهلي إن جاهل نقض إله بن مجنجلي قالوا وحيدا ادعو بري لنا أنك ربك النوبري يبينها عدي لنا أنك هنوع عدي ما محيبي هي إيضو طهي نفك الله ذا وحوي هي هنوع عدي النوبري قال وحوي إنه إسوى الله سبحانه وتعالى يقول وحوليه إنه الله يقول وحوليه إنها إيضو بقرة واسع لا طارد أن دأهين مدأ أو دق عنهين ولا ذكر قالن عنهين مدأ يرن عنهين عوان مدو بحيسوي بين ذلك انت سود حيس مد يرد يرنماها مدأ وإنما انت سود حيسا قال وحي الرب سبحانه قالوا فطعموا سمية ما تؤمرون وحل يدين أمر يا سمية هذا الكفدان اسكد ايه وحل يدين فرنك سمية او تلاب صدا تلاب قال لي تاني وحي هاي قصة آخر كذا لو كان دولا الصواب تاع يارنتني كتمت وحي أهيد نين بيسكدلين نينكي مركا يسكدلين بيديجيسي اسكو ريحين ولا اسكو خفصدي ورنين كاتلي ما انك ما نادي نين كاتلي ورنين كايدين كاتلي ولا اسكو خفصد مركا يسكو خفصدان با إلهي سبحانه وتعالى مركا كلا دخغلايو لحلينيا سيدنا الله كلا حلينيا مركا سيكو يمن نينكا دلكيسو ما نين أدارو يهيبا دلي ما تحلبو كربي ما السبب كلا كانتي وركادو وحيتوسو عرورتي الروايات كإسرائيلية لا نوكل لمرك لا نصدق ولا نكذب لكن القرآن فوحو عبره من هنا يسكدلين نينكي مركا يسكدلين لا يسكو قبصدين مركا يسكو قبصدين لا إلهي سبحانه وتعالى وكلا سارة يو نينكي أرنكي سيسيدي الله كلا بحي لها باي قصة المركا كتب وحالي يسو مرتا نينكي هنا كوكلا بحنان وات المركا موسى قوم كيسي وحو كيري الله وحو إذن أمر يا إنا بنيت نوع جورعدان ساع جورعك بل هذا البنين ظفير وحي إذن أو موسى كاري من وحي يارسا حام نوجه سيسيسا ميت بانا النوية الله حرام حنبان كترنا أظن أنه يارس ساع جورع معي ساسيري ساع جورع معي نبي موسى عليه السلام وحي إلهي بان لما غن أقاها إنا الجاهلين تكمل نقطة معنى هذا هو أن عيار إيا تشيس يددك لغو تشيس هو جهلي منك سمينا هو جاهل نبي موسى يعني وحوي حاشاه يددك عن الخير كأنه وحو تشيس ساسوي معنى مركز وحي هذا هو يقرأ وصلنا وظننت هاي بلصعها النلوت المعمو بل صعوا من سقط الله بصدر صعوا من سوقتان كوهودا وانت سوقتان من الجورعان والربني إسرائيل مياه كريم وحي هذا نوع عدم حوية يسد بل ساعة نوع شرح نوع تلمام وحو يري ألا وحو إذن الله هاي ساعة إلهي ما تلمامي نبي موسى وأقد بنيها إيه وحو ألا إذن الله ساعة هرت الداء معها دق معها مد ير روض اليرعن معها قال يرنا معها ودحدحات حقا ودنكي داء ايه ورك اللي إذن الله هاي اللي إذن أمر يسميه انت هذا الكبد اسكت يسال سوق الناس لو تلمان تعالى الجورع ساسكوي واذكروا حصوصته اذ وقت واذكروا حصوصته اما واذكر حسنبي اذ وقت قالوا لموسى لقوم كيسمركم كيري تلكي ان الله الا يامركم وحد امريا ان تذبحوا ان الجورعدان بقره صائنه الجورعدان نفلوا قالوا حيدا اتتخذنا ما واحد ما لسه ويسنيسا او لغا دغنيسا هزوا جس ما نو عياريسا موسى قال وحوري أعوذ وحن مغنجلي بالله إلهي بان مغنجلي أن أكون إنا أهاضه من الجاهلين كوى الجاهلين تأنا كم من نقضي إلهي بان مغنوح كوى إلهي كوى سيصدتك يسا كوى عيارة جاهلين تأنا كم من نقضي إلهي بان مغنوح قالوا وحيدا ادعو بري مك لنا أنك ربك نوبري يبينها ويدها عديه لنا أنك ما هي وحايتها ما محيبي هي إيضو أطهد محيتها هي نيفك الله دي محوية الله حقيق بلو أبتري الله وابضلنت هاي ساعة وأبتري وعدي لي قال وحوري إنه يسوي الله وهي يقول وحو ليه
إنها سعة بقرة ونفلة وسع أو لا فارض مد عنها مدك معها ودأوي ولا ذكر مد يرنمه وقالنا عوان وأضحية بين ذلك كاس أضحية دأوين يدأ يربو أضحية ودحات فافعلوا سمايا ما تؤمر وحل إذن أمر السمايا تلاشدوا هذا الكبدن شوشية قالوا وحيدا ديننا يا نفيس ادعو بري لنا أنك ربك النوبري يبينها عديا لنا أنك ما محيب لونها مدب كيدو أحد دأذي قرني فالمدب كيها ننشر قال يحر النبي موسى عليه السلام إنه ألا يقول وحو ليه إنها يد بقرة واسع صفراء أو شالة مدب كيدو شالية فاقع ولبا أصافية لونها مدب كيدو أصافية وحفر حاو سنجرين تصر أو فرح قليل الناظرين روحي فيريانا وكفر حيوه يعني وحويان أدقر بنو حاجة وعاتنا هيلبك يصير يسوها يستطو يعني الروح إيش ساربا وكفر حيوه معناه وحوي قلبك والرياق اللي نسوي معه ساسقول رياقيا تاسي دأبي بيا هيدا حضر وحي وحكوي دينا يعني بل ميدب كذا هنلوشه محاكا قال ميدب كذا ليفك الله والله ما يقول ناس ساعة جورعات شددوا فشدد الله عليهم ويسكو أتكيين مركزوا الله لكو أتكي سبحانه وتعالى ساسويا سيدا ضبع حداد يعني فتوضون تهيو إن مسألة لقاقتش وبأدونيسو حدين لغو عدو يوالا تقع مركبنا سيدا فهمتي باللفونية لكن هدي أتسيق قفتو أو أتسيق دوقشو أو تندعشو أذيقنا والله الله فندعلي ما يمحن بيقول لك المركب صوما مركا يسكفوا ضده وحبا يسكوا أتكين وحيدان قالوا وحيدان ادعو لنا نوي دين نوبري ربك نوبري يبين هعدي لنا أنك هنوعدي ما محيب لونها مدب كذوية قال وحيد إنه يسوي ألا يقول وحليه إنها أيض بقرة واسعة صفراء أو شالاء مدب كذو شالي فاقع وبرح لأيه لونها مدب كذو صافئ يهيو يعني وحويا وحتى الرعاق سنجرين تصر فرح قلينيسا الناظرين قوة فيرين ينا فرح قلينيس يعني وحوي ويكفر حينيسا ومركات إيش سارتاي ويكسوت شيدا وذو الرياضي ومعنى قالوا وحيد هذا ادعو بري لنا أنك ربك نوبري يبينها عدي لنا أنك ما محيب هي يدطها بل كريت كنين موسى يستارك maxay tahay bil atagin ma maxaydan hiya iyadu tahay maxayela innal baqara wadi tashabaha wa isku darmaray calayna dushanade wasaka la khaldamay waa isu ekaade bal nooha maroosi cadeeyo wa inna anaguna insha Allah haduu alla doono la muhtaduna kuwa hanuun baanuna rabbi waa nuu sameyn doona subhanahu qala Musa alayhi salam إنه ألا يقول وحليه إنها أيض بقرة والنفوة لا ذلول مثل اليمع تاسو تثير فشا أما فاكتة أما قطع الأرض بلك قطع ولا تسقي مدورا بسماها الحرث سرعك يديرها مدورا بسماها مسلمة ومد نبضقش إذا معها قالوا وحيد هذا الآن هذا أيك جئت لتمت بالحق حقيقة هذا لتم حقيقة من هذا كنت فذبحوها ويجورعين والحال بيجورعين ما كادوا أي سنسجين يفعلون إن سميا وحيد هذا من الله عديو خلصي عديو بل ميلك يدينا قرني دا يدينا قرني لكن ولي وحنوصي باهنا هاي إن بلسي عديو محي لي لقضع ميلك يدينا ويا إتشالله دأديدنا أي دحدحات كتها وي فربضنت marka bal si caday wali way saagaan dhaqsitaan waxa lagu yiri waanan hanuuni doonaa bay xogaa rajay muujiyano inaanu macaanimada ku sii jireyna ma inay isla yaabeen marmar iyaga laftooda inaan macaanimada ku sii jireyna ma aha waanu sameyn doonaa bay laakiin bal waxa la caday wuxuu ku yiri alle wuxuu idin leeyahay neefkan looda ah mid layliyan ma aha daluulka waxa leeyahay neefkan la leeyay ee shaqada loo leeyay inuu shaqeeyo oo la rarto ama wax falo ama shaqeeyo loo leeyay waxa la yiraahdaa yani daluul leeyahay saasma waleeyay xoolaha laba
midna sidii ilaahay u abuuray wayo dushiisa lama taabto wuu daaqaayo waa la maalaa markii la rabana waa la qashaa midna waa lagu adeegtaayo ama waxbuu falaa ama waa lagu dhaansadaa ama waa la rartaa midkaasaa daluul la dhahaa marka waa mid yani layyan marka mid layyan ma aha oo dhulka fasha dhulka laguma fasho ma faagto mid beeraha waraabisana ma aho oo biyo lagu soo dhaamiyo musallamo weeyaan oo ceeb male meel yan in kuma laha waxaa loogu daray barna ma laha shiyada waxaa la yidhahdaa waa midabka khilaafsan midabka intiisa kale meel yaroo midabka intiisa kale khilaafsan marka bar mar haddii la yidhi midabkeedu waa jaalle midabkaa wax yar oo ka gedisan ma laha saas maanaa laa shiyata fiiha qaaluu waxay yidhahdeen al'aana ji'ta bilxaqi intaa markii loo tilmaamay ayay yidhahdeen haddaad xaqi la timi hadda oo markii hore xaq muusa la imaanaya bal abdarooda firi markii horeba xaq waa la yimide laakiin ayaga macanjegnimadooda iyo madaxadaygooda iyo qalabsanaantooda unbay arrintiisa ku noqotay macana sidaas wey way sameeyeenoo way gawraceen rabbi subxaana watacaala markii sidaa loogu sharxay kadib ayagoo oon sigin inay sameeyaan mayna sigin inay sameeyaan waxaa laga wadaa yacni nimanku sida ay yani ay su-aalaha isu daba dhigeen iyo kolba markii la cadeeyaba sida ay dib ugu sii guranayeen waxayba sigeenba inay iskaba tagaan inay gawracaanba inay faraha ka qaadaan bay qarka u istaageen iyagoo taas ay dhacday ayay dib ka gawraceen way macana markii hore laakiin qarka waxay loo istaageenba inaysan gawracin su-aalaha faraha badan iyo madaxadaygooda iyo macangegnimadooda saas way macana qaaluu waxay yihi udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeyeen lanaa annaga maa maxay bay hiya iyadu ahaatay neefka lodin furi maa maxay bay hiya iyadu oo tilmaam labadii la hore lasoo tilmaamay tilmaamo kale yay rabaan maxaa yeelay ina albaqara baqarkani waa lo o dhan jinsi ina albaqara lodi tashaabaha waa isku darmaday oo waa isu ekaaday calaynaa dushanada waa isu ekaaday oo garan weyne midda la rabo wa inaa anaguna in shaa allah hadduu alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuuna ayaanu nahay oo jidka waanu ku dhiciyo waanu samayn doonaa qaala wuxuu nabi muuse calayhi salaam inahu isagu alle yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waa neef lo waa sac oo laa daluulun mid layyan aan ahayn tuhiiru midaasoo fashaa alarda dhulka fasha dhulka faagta oo fasha ama qoda walaa tasqii mid waraabisana ma aha alxarta beerta iyo sarciga gaybiyana laguma soo dhaamiyo oo laguma waraabiyo beeraha musallamatun weeye mid macnaha nabad gashan mid la nabadgeliyo wey musallamatun waa mid la nabadgeliyo oo ceeb oo dhan laga nabadgeliyo in iyo dhimanaansho ma lehe neef xoolaa intuu dhammaystiran yahay bay dhammaystiran musallamatun waa mid la nabadgeliyo ceeb laga nabadgeliyo laa shiyata wax bar ah iyo midabadeeda khilaafsanna fiiha dhexdeeda ma aha wax bar a male qaaluu waxay yidhahdeen al'aana hadda ayaa ji'ta la timid bilxaqi xaqiiqadii aan rabnay hadda la timid haddaa tilmaantii ku keentay fadabacuuha waa gawraceen wamaa kaaduu walxaal bay gawraceen maa kaaduu aynan sigin yafcaluuna inay sameeyaanba ayagoon sigin oo ku sigtayba inay iska daayaan ayay gawraceen oo markii dambe ay macnaha ku kaceen oo ku dhaqaaqeen saasuu alla leeyahay subxana wa tacala waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuun sababka maadaama qisadii la sheegay sababtay qisadu ka timid oo ku timid baa dib laga sheegay luqada carabiga qur-aanku kusoo degay baa laba qaab baa la isticmaalaa shay markaad ka warramayso inaad sababtii shaygan keentay marka hore hormariso kadibna shaygii ka dhashay oo qisada ahayd aad ka dambaysiso waa la isticmaalaa marna qisada iyo musababka arrinka qisadaa laga warramaa qisadii markii laga warramo kadibna sababtii keentay baa laga dambaysiiya tani waa qaabkan dambe ku socota usluubkan dambe oo sababtii qisada keentay baa dib laga sheegay waata marka waid waqti xusa qataltum aad disheen reer bani israa'iilow nafsan naf markaad disheen oo fadaara'tum aad isku khilaafteen fiiha dhexdeed wallahu allana mukhriju weeye midkii bixinaya maa shayga kuntum aatihin taktumuuna kuwa qarinaya faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi idribuuhu dhufta maydka ku dhufta bibacdihaa sacan qaarkii ku dhufta saca qaar ka mida ku dhufta kadalika sidaasoo kaleu yuxyi llahu ilaahay u noolaynaya almawtaa kuwa dhintay saasuu u noolaynaya siduu kaa u nooleeyey oo kale buu inta dhimatay u noolaynaya
oo wayuriikum idin tusaya aayaatihi calaamooyinka iyo astaamaha ku tusaya awoodiisa iyo qudradiisa lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood wax garataan waxaad xusuusataan markaad naf disheen oo nin idinka mid oo reer bani israa'iila uu naf dilay markuu dilay kadibna aad isku qabsateen ood isku khilaafteen fadaara'tum ay ikhtalaftum watanaasactum tadaaru'a waxaa la yidhahdaa iyo dar'iga asalkiisa dafciga la yidhahda riixida dara'a baa la yidhahdaa iyo dafca waxaa loo leeyahay sidaa labada ruux markay isqabsadaan oy murmaan soo isma riixriixaan marka saas daraaddeed baa fadaara'tum waad isriixriixdeenoo ninka dilkiisii baad isku riixriixdeen war idinkaa dilay may idinkaa dilay waad iskhilaafteen baa laga wada waad iskhilaafteen oo dhiiggii baad isku khilaafteen iyo ninka ciddii dishay allana subxaanahu watacaala waxa aad qarinaysaan wuu soo saari maxay qarinayaan gacanku dhiiglihii ninka dilay bay qarinayaan wuu isqarinaya muranka batanaa keenay kaana ilaahay wuu soo saariyo ma qarsoonaan doono markaasaa waxaan ku nidhi buu rabbi subxaana wa tacaala neefkii aad gowracdeen qaar ka mida maydka ku dhufta saca qaarkii maydka ku dhufta qaarkaasi waa kee ma lugta ma bawdada ma jeeniga ma madaxa warkeeda laynama gasho qur-aanna ma sheegin sunno nebina ma sheegin qayb alla qaybtuu lagu dhuftayna muhimmadii waa la helay soo ma maxaa naga galay marka waxa way qaybtuu ah qayb uun saca ka mida ku dhuftaa la yidhi maydka way ku dhufteenoo maydkii waa soo istaagay waa noolaaday markaasuu caddeeyey oo sheegay oo yidhi ninka idilaya waa hebelkaa ina hebel khalaas soo arrintii laguma kala dhixi ayib darsiga laga leeyahay waa kamid kadalika yuxyi illaahu lmawtaa soo naf dhimatay oo inay dhimatay aada ogeydeen ilaahay ma soo noolaynin oo hortiina intay soo istaagtay ma hadlin haw ma muran baa marka ku jira markaad dhimataan kadib in ilaahay aakhara idin soo noolayn doono oo wax laga murmi karaa maya naftaasuu u nooleeyey hadda idiin muuqata buu inta dhimatayna ilahay usoo noolayn doonaa subxana wa tacala saas weeyaan leanna waxa weeyaan nimankii nebigu sal alay waslam uu ka dhashay ee carabta ahaa ee diinta loo gudbinayay ayaa waxay ka muransanaayeen aakhara in layska soo saari doono oo ma markii la dhinta kadib baa lasoo noolaan doona maba dhici karta dhii jir waxaa la leeyahay marka reer bani israa'iil baa ninkaa hortooda ilaahay kusoo nooleeyey allaha soo nooleeyey soo awood uma laha markaad dhimataan kadib inuu idin soo nooleeyo kadalika yuxyi illaahu lmawta caqiidatu lbacthi walnushuur baa la taqriirinaya macna saas way macna dhowr meelood ilaa 5 meelood ayayna aayaddu ku taqriirin doontaa mabdaa isaga dhowr mithaal oo kani kow ka yahay ayaa laga bixin doonaa marka la dhinto kadib in ilaahay soo noolayn doono dadka macna tusaalayaal noocaas oo kale oo kani ka mid yahay baa laga bixin wadkuruu xusa reer bani israa'iil id waqti qataltum aad disheen nafsan naf markaad disheen idin ka mid ah oo fadaara'tum nin iyaga ka mid ah dilay fadaara'tum markaa aad isku riixriixdeen ood isku khilaafteen fiihaa nafta dilkeeda aad isku khilaafteen wallahu allana mukhrijun waya midkii soo bixinaya maa shayga kuntum aatihiin taktumuna kuwa qarinay oo ninkan kii dilay ah iyo dilkiisaa banaankaa la keeni wax ilahay ka qarsoon maa allana wuu muujin faqulnaa markaa waxaanu nini idribuuhu maydka ku dhufta bibacdihaa neefka qaarkii saca qaar ka mida ku dhufta way ku dhufteen wuu noolaaday soo ma kadalika sida kaas uu u noolaadee alla u nooleeyoo kale ayuu yuxyi ilaahay u nooleeyaa almawtaa kuwa dhintay u nooleeyay ama adduunka ama aqrab ayb wayuriikum idin tusi alla subxaana wa tacaala saasoo kale idin tusi aayaatihi calaamadihiisu idin tusi aayaadku maxay yihiin waa astaamaha waaweyne ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusay soo ma awood ilaahay uu leeyahay buu hortooda ku tusay aayad iyo calaamad weyn oo ilaahay awooddiisa tusaysa way macnaa oo tilmaamaysa wey lacallakum tacqiluuna si aad u caqli yeelataan ood wax u garataan oo wax u fahantaan ayaa sidaa loo yeelay way macnaa ama lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood wax garataan uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa reer bani israiil aayada cadcadso lama tuso aayadihii cadcaddaa markii la tusay kadib mawqifkooda muxuu ahaa quluubukum quluubtiinni baa ingegtay min bacdi dalika kaas gadaashiisa aayaddaa iyo astaamaha weyn ee laydin tusay kadib quluubtiinni waa ingegtay oo fahiya iyadu quluubtii kalxijaarati dhagaxyaantoo kale wey xagga adayga iyo
qalab sanaanta aw amase ashaddu wayba daraan badan tahay ashaddu mid adayg badan weeye qulubtii qaswatan xagga ingeyga ayadaaba ka adayg badan dhagaxyaanta wa inna min alxijaarati dhagaxyaanta waxaaba ka mid a lamaa shay baa ka mid a yatafajaru uu burqanayo minhu xaggiisa ay ka burqanayaan alanhaar way beeshu ay ka burqanayaan wa inna minhaa dhagaxyaanta waxaa ka mid a lamaa shay baa ka mida yashaqaqu uu macnaha dildilaacayo uu jeexjeexmayo lamaa shay baa ka mid a yashaqaqu jeexjeexmayo dildilaacayo oo fa yakhruju uu ka soo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu ay ka soo baxayaan wa inna minhaa dhagaxyaantii waxaa ka mid a lamaa shay baa ka mida yaxbitu hoobanayo oo dhacayo meel sare ka soo dhacayo min khashyati illahi ilahay cabsidiisa daraaddeed wama allahu allana ma ahaanin bigaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ma mooga nimankii intaa la tusaaleeyey oo calaamadaha waaweyn ee wax lagu qaato la tusay oo intaasoo dhinac lagala hadlay oo wax laga tusaaleeyey nimankii iyaga ahayd qalbi adaygun bay kasii qaadeen quluubtiinii baa ingegtay oo adkaatay qalbigu waa ingegayo wuu adkaaday waxaa la yidhahdaa markii uu mawcidada iyo waanada iyo waxsheegka ay waxba ka bedeli weyday qalbigiini waa adkaaday qalbigu weliba adeegiisu wuxuu daran yahay markii intuu arko xaqii iyo xujajkii cadcadaan intuu arko markaa kadib uu ingego waa geed biyo ku dhex ingego hadduu isagoo jahli ku jira jahli dhexdii uu ku ingego waa geed meel cidlaa ku ingegay oo dhibic ku dhacdiyo daruur buu sugayay soo ma laakiin hadduuba biyaha dhexdoodii ku ingegay oo xujajkii iyo aayaadkii markuu arkay kadib uu ingegay rajo miyaa laga qabaa inuu dib u qoyo maya way macna tusaala laga bixiya yani sida ay quluubtooda u ingegtay oo waxaa lagu tusaaleeyey dhagaxyaanta ayay la mid tahay bale bal wayba ka adayg badan tahay awda waxaad tidhaahdaa awdu ama sideeda ku wado waxaad tidhaahdaa waxaa laga wadaa quluub qaar ka mida iyagana quluubtoodu dhagaxyaantay la mid tahay qaarna wayba ka sii adagtaa way ka qallafsan tahay dhagaxyaanta saa ka dhigoo laba nooc ka dhig ama awda waxaad tidhahdaa bimacna waa weeyo yani ama bimacnaa baldhe kolba kaa doontaad awda marin kartaa macnaha laakiin marnaba shaki ma ilaahay inuu shakisan yahay quluubtoodu ma dhagaxyaantay la mid tahay mise way ka adag tahay ma shakisna ilahi subxana wa tacala laakiin awdu macaani kaloo fara badan bay leedahay oo macnaha loo isticmaalay ayib dhagaxyaantii baa marka laynoo sheegi sida ay quluubtooda uga jilicsantay dhagaxyaanta qaar waxaa ka mid a intay macnaha waxa weeyaan ay macnaha waxa weya ay ka burqanayaan webiyaashu ay kasoo burqadaan ilaha durdurka ah dhagaxyaan bay kasoo burqadaan oo buuray ka yimaadaan biyaha ka yimid waa ilmo uu dhagaxii ilmaynayo oohin way ilahay dartii u ooyey subxana wa tacala cabsi ilahay buu la ooyey qaar ka midana intay dildilaacaan bay biyo ka soo booday waa cabsi ilahay iyagu qaar dhagaxyaanta ka midana meel sare ayuu saaran yahay buur dusheed isagoo saaran buu halkaa ka soo dhacay maxau saa u yeelaya cabsi ilahay buu halkaa uga soo dhacay laakiin quluubtiina wax isbedelaba waa laga laaya saas way macana marka dhagaxyaantu inay ilaahay ka cabsato xaqiiqo wey sidaa in loo daayaana saxa dhagaxyaantu ilaahay way ka cabsadaan xaqiiqana way inay ilahay ka cabsadaan jamaadaadkaas ilahayna ka cabsadaan tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihina wain min shayin ila yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum makhluuqaadkan arkaysaan kulligood ilahay bay u tasbiixsanayaan buuraha iyo dhulalka iyo meel walba laakiin ma fahmaysaan soo nabigu ma odhan sal alay wasalam yani waxaan garanayaa dhagax ila hadli jiray baan garanaya bu nabi sal lay slam buurta uxudna nebigu waa kii dhihi jiray sal alay wasalam waa buurna na jecel annaguna aan jecelna soo ma marka dhagaxyaantan aad arkaysaan la dhihi maayo macnaha in la leexiyo meehe in loo daayo wey ilahay bay ka cabsadaan subxana wa tacala laakiin say uga cabsadaan ma fahmi karno say uga cabsadaan bay lakin way ka cabsadaan rabbi subxana wa tacala saas weeyaan law anzalna hada alqur'ana cala jabalin lara'aytahu khashican mutasadican min khashyat illah saas wey macana qur-aankan haddii buur lagu soo dejin lahaa ayadoo dildilaacaysa ilahay cabsidiisaad arki lahayd macana qur-aankan culayska u leeyahay macana sidaas weya marka dhagaxyaantu ilahay bay ka cabsadaan bini aadamka kuwa qalbigoodu ingegay qulubtoodu qallaftayna dhagaxyaantu way dhaamaan saas wey macana
uma markaa kadibna qasad waxaa ingegtay quluubukum quluubtiinni way ingegtay min bacdi dalika kaa gadaashiisa oo fahiya iyadu quluubtii kalxijaarati dhagaxyaantoo kale wey dhagaxyaantay la midta xagga adayga iyo qallafsanaanta aw amase waa kuwaasoo dhagaxyaantay la midta aw amase ashaddu way ka adayg badan yihiin dhagaxyaanta qaswatan xagga ingeyga qaarna waaba kasii adag yihiinba oo waa ka qallafsan yihiin yani dhagaxyaanta wa ina min alxijaarati dhagaxyaanta waxaaba ka mid a lamaa shay baa ka mida yatafajaru uu burqanayo minhu xaggiisa alanhaar webiyaashu ay ka burqanayaan webiyaashu ay kasoo burqadaan baa ka mid wa ina minha waxaa ka mida dhagaxyaanta lamaa shay baa ka mida yashaqaqu dildilaacaya fayakhruju uu ka soo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu ay ka soo baxayaan ta hore iyo tan waa kala gedisan tahayo midna waa webi iyo il durduraa ka imaanaysa midna intuu kala dilaaco unbaa biyo markaa aan soconaynin baa ka soo baxay saas maanaa biyaa kasoo boodaya macnaha wa ina minha waxaa ka mida dhagaxyaantii lamaa shay baa ka mid a yahbitu hoobanaya oo dhacaya meel sare kasoo dhacaya min khashyati illahi ilahay cabsidiisa daraaddeed wama allahu allana ma ahaanin bigaafilin mid moog camaa tacmaluna waxaad samaynaysaan soo ilahi subxana wa tacala mu'miniinta ugama digin inay sidaa reer bani israa'iil quluubtoodu u qallaftay u ingegtay inay quluubteena u ingegto alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wama nazla min alxaq wla yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasad quluubuhum siday quluubtooda u ingegtay oo kale idinkana yayna u ingegin ee mu'miniinta ilaahay waanadiisa iyo wacdigiisa iyo u jilca ciqaab addoonka la ciqaabo quluubtooda qalbigiisao khayrka laga engejiya u dara saas maana oo waanadii iyo diintii iyo qur-aankii iyo axaadiistii iyo hanjabaadii iyo ballanqaadkii iyo waxbaba kaa qaban waayaan meeshaada inaad taagnaato yani waxa weye waa dhaqanka yahuudda ilahay buu ku sheegay subxana wa tacala afa tatmacuuna ma waxaad damcaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum idinka hunguri ma wuxuu idinkaga jiraa inay idinka rumaystaan walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid yasmacuuna kuwa maqla kalaam allahi ilahay hadalkiisa tawreed uma markaa kadibna yuxarifuunahu way leexinayeen yuxarifuuna way doorinayeen oo way bedelayeen min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib walxaal bay duwayeen oo leexinayo bedelayeen hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin khaladkooda iyo ciqaabta ka dhalanaysa tani waxa weeye nebiga sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa ba aad waxay isugu taxallujin jireen oo isku dhibi jireen in ay yahuuddan iyo reer bani israa'iilka la degan inay diinta qaataan oy nebiga raacaan sal alla alay slam markaasaa ilahay wuxuu ku leeyahy waxba taas ha isku dhibin ma waxay idinla tahay oo hunguri idinkaga jira iyo damac inay idin rumaynayaan oo ay idinka rumaysanayaan oo xaqa idinla qaadanayaan iyadoo koox ayaga ka midi ilaahay hadalkiisii intay maqlaan waa tawreed hadalkii ilaahay ee kitaabkoodii tawreed ku soo arooray intay maqleen markay maqlaan hadalki ilaahay hadal ilaahay inuu yahayna ay og yihiin bay bedeli jireen intay qabtaan bay bedelayaan say u bedelayaan laba mid yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi meeshan xarafkii ku yaalay intay ka saaraan bay xarafay jeebkooda kala yimaadeen bay soo gelin jireen taas waa taxriifka lafdiga la yidhaha lafdigii meesha ku qornaabay bedelayaan ee tawreed oo meeshay ka saarayaan lafdigiiba taxriifka labaadna waa taxriifka macnawiga aho macnihii ilaahay ula jeeday yaa intay ka leexiyaan bay macno iyagu jeebkooda ay kala yimaadeen danahoodana u adeegaya bay dadka ugu fasiri jireen sidanuu ilaahay ula jeedaa bay dhihi jireen kii ilaahay uu ula jeedayna way garanayaan laakiin way ka leexinayaan macna marka iyagoo hadalkii ilaahay intay maqleen oy og yihiin inuu hadalkii ilaahay haddana ay u badheedheen hadalkii ilaahay inay bedelaan miyaad idinku hadda hunguri idinkaga jira ma nimankaasaad hadda ka sugaysaan oo hunguri idinkaga jiraa iyo damac inay idin rumeeyaan ma kuwaasaa hunguri idinkaga jira maya hungurigiisa idinkaga geli hadalkii ilaahay ay maqleen bay tigelina hadday wuxuun tigelina markaas lu goynina way macana kaabsada wixii aad gaadhsiin kartaan gaadhsiiya laakiin niman hadalkii ilaahay ay fahmeen oo ay karteen bedelay hunguriyuusa idinka gelin inay idin raacaan way macana saas daraaddeed qoysaskii yahuudeed ee deganaa magaalada madiina reer bani qurayda iyo bani qaynuqaac iyo banu nadiir afraad yar baa nabiga ka rumaysay salawatu rabbi wasalaamu caleyh aad u yar khaybar iyo yahuuddii deganaydna ayadana waxa weeyaan sidoo kale kulli markaad isku darto
وتلاءات وير وحنا محمد راعي صلوات ربي وسلامه ساسي معنا هاي لأنه هبار بيقبله آياته إلهي كتاب في التوراة بهرب صلقين ويصوت تحريفيا معنا هو سر جبل مر أفتطمعون ما واحد ضمع إنسان وهم فريين إنسان أن يؤمنوا إلى الرميان لكم إذنك والحال قد كان أيهايان فريق كون ومنهم أيك كمده يعني يسمعون قوة مقرأ كلام الله إلهي هذا الكيسي مقلشي قوة هذا الإلهي مقرأ يعني هذا الكاسي وكتاب في التوراة هذا الكيكوي عليه وحلاشي سي حلاشي سي انتي بدلين بي حرام وبدلين حرام تيسين حرام بي وبدلين تلمامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكوي عليه توراةنا انتي بدلين بي يعني دوريين هل دوريين إلا إيهادنا توراة المحرف كا إيهستان ولي وحا باقي كسيا آيات كتوسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلوات ربي وسلم عليه إلا يتكر صنطي بالغيها وإلا هذا يوجيهين ويبدل لها لكن تأي هذا هيان اللي بدلين لفتنا وحا لقهليا آيات المامية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه مكة كفر بحثه رسول إلهي لقوية كان أي هذا هيان لفتنا كنت الله معنا مركا ويبدلين وحيالها يبدلين بيكمل هاي لكن وحبا ولي باقي كل نقضي أنا معناها وحوي ذاتك انتو بدن أي قرنين ومعنا أفتطمعون ما واحد طمع إنسان أن يؤمنوا إلى الرميان لكم إذنك والحال قد كان أي هايان فريق ومنهم أيها كمدا يسمع لماذا ديوي يسمعون قوة مقل كلام الله إله هذا الكيس مقل ثم مركا كذبنا يحرفونه ويدورين ين ويبدلين هذا الكإلهي من بعد ما عقلوه مركا يفهمين كذب هذا كان نقطة أضوء حاجات إسلا أي كاحمات إيه هذا أضوء فهمي هذا كسو دامر تصوم كلام من بعد ما عقلوه مركي فهمين كذب أي بدلين والحال بيساء قلن هم يبو يعلمون أي أجيهين خلط كودا يأكاد كتلن دون تأيوجي يجو استقبل بدلين وإذا قرت لقوا إلا كلمان الذين كوي هذا إلا كلمان آمنوا رميي قالوا وحيرون يا آمنا ورميني وإذا قرت خلاء وقونين نقضوا بعضهم قارقود إلى بعض قارك كلمة كل لقون النقضنا قالوا وحيرون يا أتحدثونهم ورميات والرميسان هو الأضو تكتين مؤمنين تنميات والرميسان بما شيء مياد والرميسان فتح الله ألا أوفري عليكم شيء وحي إلهي دين فري محاب هو الرميسان ليحاجوكم سئي إذين حجيان عند ربه إساق إذين كل حجيان وإذين كجر هلان عند ربكم ربكم أكتس أفلا تعقلون ميادا عقل الله قال ليس آياتني أهل الكتاب قال الله قيبضها بني إسرائيل كوح قال لماذا يديدوا النبي يديدين حتى يستبيع كوحنا منافقين بيحاي وحال إلى هذا كوحنا منافقي أهل الكتاب أهل الكتاب كمنافقين توديو يهود ويهين لكن إيمان بيحضرون موجستين مركوا منافقين خران أهل الكتاب بيحاي قولوا لا سامرك لغاهم قولوا لا سام مؤمنين تو إيماني مؤمنين تمركوا إيمانان وحيليهين وانوا رميني نبي محمد نجينو النبي هيوان أقلاني كتاب في نجينو كتاب حق يهين وان أقلاني ساسروني قولوا ذي كلامك يقول نقضان يجوا عن منافقين يهود نمدوا إسك عطيستي يقال لمدوا كوي مركا يكون نقضان بالقصاني مركون حلوة وريانا ورنمن كان محاط وشيكتين وحي إلهي إذين فري ومحا وحي إلهي إذين فري نبي محمد إنو النبي كتاب كأولا إمام دونان هو حقيا وحي إلهي هري إذين كفري والتوراة وكسو دجيبه يتو إذين ككذين بالإذين فري وصرتا أغاء haddaad sirtaa ogeydeen maxaad nimanka ugu gudbiseen oo ugu sheegtay wixii ilaahay idin furay si ay idinku xujeeyaanoo ay idinka garhelaan maxaa yeelay hadday ogaadeen muslimiintii iyo carabtii hadday ogaadeen tawreed inay ku taallay nebi maxamed inuu imaan doono rasuul xaqana uu yahay kitaabku la imaan doonana uu xaq yahay hadday ogaadeen yahuudna ay ka ogaadeen soo loo xujaysan maayo la dhihi maayo war idinkii baaba le rasuul weeyo kitaabka nagu ku yaalee maxaad u diidan tihiin soo taa la odhan maayo war nimanka hay garta haynaga siinina wax berrita aynaga garhelaanna ha u sheegina sirtani ha qarsoonaato maxaad ugu sheegaysaan bay leeyihin ma inay naga garhelaan oo xujada inaga helaan baad doonaysaan ha yeelina bay leeyihin miyaydaan caqli lahayn wixii berrita adigiiba lagaga garhelahayay inaad sheegto oo ninkii aad ishayseen u sheegto برينا عن قبطة إنه كوجو حجين دونه هذا هو عقل الدراسة أفلا تعقلون ميدا عقل واحد قرنا يميدا هم بيقولين معنا سناس يجا دحنا ضيبا إساس تمر بما فتح الله عليكم
laba macnaba waa lagu fasiraa mid weeye wixii ilaahay idiin furay oo taan hadda nidhi ah tawreed wixii ku yaalay oo ilaahay idiin furay maxaad ugu sheegaysaan nimankan nebi maxamed raacsan si ay idinku xujaystaan taa waa sax waxaa kaloo lagu fasiraa wixii ilaahay idinku xukumay laanna fataxada bimacnaa qadaa waxakama waa la yidhahda wuxuu ilaahay idinku xukumay hadda ka hor oo ciqaab ah maxaad ugu sheegaysaan nimanka oo waxay noqonaysaa waxay u sheegeen mu'miniinta in hadda ka hor awowyadood ilaahay intaasoo goob u ciqaabay oo intaasoo yani waxa weye cadaab la mariyey markay u sheegeen baa waxay yidhahdeen war nimankiinan sharafta sheeganahayo oo magaca sheeganaya waaba niman ileen waxaasii balaaye ka soo daala oo awowyadiinbaa ileen balaaye qab ahaa weligiinba marka waa lagu dhaleeceeyey marka waxay leeyihiin war nimankan wixii ilaahay idinku ciqaabay hadda ka hor ee idinku xukumay awowyadiin ku xukumay maxaad ugu sheegaysaa si ay idinku xujaystaan oo berrita idin yidhahdaan waryaana sharaf baabad sheegaysaan ilaan dadba ma tiidinba saan laydin odhan maxaasaa u leeyahy taana waa suurtagalo waa tafsiir kaloo fataxa calaykum bimacnaa qadaa waxakama oo markaa shayga lagu xukumay wuxuu noqonayaa cuquubaadkii la mariyey fataxa haddaynu ka dhigno furidna waxay noqonaysaa wixii loo macluumaadkii tawreed ku yaalla ilahay u furay subxana watacala ummadana yani risaaladeeda calaaqada la lahaa saas macana waidaa goortii laquu ay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey markay la kulmaan dadka ahluliimaanka markay la kulmaan munaafiqiintii ahlulkitaabku qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waxaad rumaysantihiin baan rumaynay waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin riwaayadka qaar waxay leeyihiin culamada tafsiirka qaar waxay sheegayaan waxay markay yidhahdaan nebi maxamed inuu nebiha waanu qirsanna oo la yidhahdo dee maad raacdaan baa waxay odhanayaan annaga nebi noomahe laakiin carabtan buu khaas ku yahay inta ay marka leeyihin war maxaa sirta ugu sheegaysaan intaaba qaar baa culimada saa ku siray waidaa goortii laquu ay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waidaa khalaa waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale uu la gooni noqdo oo isla cidloobaan iyagu qaaluu waxay odhanayaan kuwii gaalnimadooda cadaystay oon iyagu aan iyagu munaafaqaynin kuwaasaa waxay odhanayaan kuwii kale la hadlaya atuxadithuunahum war ma u warramaysaan mu'miniinta atbaacda nebi maxamed miyaad u warramaysaan bimaa shay miyaad u warramaysaan fataxa allahu alle uu furay calaykum dushiina oo macluumaadkii laydin siiyo tawreed ku yaalla idinka keligii laydin furo ood ogeydeen liyuxaajuukum si ay xujada idinka helaan oo idinka gar helaan bihi isaga kaasi ay idinka gar helaan bihi kaasi ay idinkula xujaytamaan aad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna miyaadan caqlilayna wax garanayn maxaad isu xujaynaysaan ood xujadiin iyo sirtiina dadka ugu sheegaysaan saasay odhanaya awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisanayaan hadday kuwan wax ka qariyeen ma ilahay bay wax ka qarin miyaynan ogeyn hadday wax qariyeen ilahay inaysan waxba ka qarsoonayn awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxa ay qarinayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisanayaan ama ay muujinayaan hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam